My name is Ahmed Shahin. maamulaha dugsiga Turkish Nile Academy ee magaalada Hargeysa Ahmed Shahin oo la hadlayay telefishinka Hon Cable isagoo ku hadlaya luqadda Turkiga isla markaasina laga tarjumayo waxa uu si cad u sheegay in dugsigoodu yahay mid aan dawli ahayn sidoo kalena aan macaashtoon ahayn isla markaasina xaruma ku leh in ka badan 170 wadan oo caalamka oo Soomaaliland ay ka mid tahay sidoo kalena Soomaaliland ay deganayeen 40 sano ee la soo dhaafay oo ay ka fureen dugsi waxbarasho hadafkiisu yahay inuu barbaariyo soona saara aqoon-yahano wax u tara Soomaaliland sidaas awgeedna Ahmed Shahin maamulaha dugsiga Turkish Nile Academy waxa uu meesha ka saaray hadallo ka soo yeeray wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Yusuf Cismaan Garad oo warbaahinta u sheegay in dugsiga Turkish Nile Academy maamulkiisu uu doonayo inuu ardayda halkaas wax ka barata u dhoofiyo dhinaca magaalada Muqdisho si halkaas ay ugu soo galaan imtixaanka lagu helo deeqaha waxbarasho ee ay bixiso dawladda waddanka Turkigu Ahmed Shahin oo arintaasi ka jawaabaya waxa uu yiri yani Gülsüm buraya gelmesi için aşağı yukarı 1 yıldan beri emek sarf ediyoruz. Waxa jira imtixaano lagu magacaabo YOS oo ay qaado dawladda waddanka Turkigu laguna helo deeqa waxbarasho oo ay ka fuliyaan in ka badan 45 wadan oo caalamka waddan kastana caasimadiisa ayaa lagu qaaday imtixaanka sidaas awgeedna annagoo aqoonsan qadiyadda Soomaaliland maamulka dugsiga Nile Academy oo kaashanaya wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland waxa si isku duubniya ay uga wada shaqeynayeen in imtixaanaadkaasi la keeno magaalada Hargeysa oo ardaydu halkaas ay ka faa'iideystaan taasina waanu ka soo baxnay intii nagaga beegneed ayaa uu sheegay maamulaha dugsiga Nile Academy ki buraya da gelsin examination center bununla alakalı waxaana uu sheegay inta ka hadhay shaqadaasi inay isu daayeen wasaaradda waxbarashada Soomaaliland iyo jaamacadda imtixaankaasi qaadaysay oo wada hadallo toos ah arintaasi ka yeeshay balse ugu dambeyn jaamacaddii arintaasi fulin lahayd ayaa uu sheegay inay sanadkani diiday Hargeysa inay timaado Türkiye Cumhuriyeti ve Somaliland Ministry of Education kendi aralarında yazıştılar. Sidaas awgeedna waxaan rabaa inaan u sheego shacabka iyo mas'uuliyiinta Somaliland in aanay wax jira ahayn in maamulka Nile Academy uu u sheegay ardaydiisa iyo waalidiintaba in ardayda Muqdisho loo dirayo sababtoo ah waxa uu sheegay inay ixtiraamayaan mabaadi'da ay ku dhisan tahay Somaliland. Nile Academy yönetimi olarak hiçbir öğrencimizi, hiçbir velimizi gideceksiniz Somali'de, Mogadishu'da bu sınavı olacaksınız diye bir kelime ağzımızdan çıkmadı. Somaliland halkına duyurmak isterim bunu. Waxa kale uu sheegay Ahmed Shahin inuu maanta la kulmay wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland iyo ku xigeenkiisa warkani uu ka soo yeeray oo arintaas ay u cadeeyeen iskuna fahmeen arintaasi inaanay jirin isla markaasina aanay ka suuroobin inay sameeyaan maamulka Turkish Nile Academy. Bugün de Minister of Education'da Mr. Abdullahi ve Mr. Yusuf Garas'la görüştük. Ugu dambeyntii maamulaha Turkish Nile Academy Mr. Shahin waxa uu sheegay in dugsiga Nile Academy uu taagan yahay kobcinta aqoonta ardayda reer Somaliland ee dugsigaasi wax ka barata una raadiyo deeqa waxbarasho oo dibadda iyagoo raacaya mabaadi'da wasaaradda waxbarashada ee Somaliland iyo guud ahaanta xukuumadda. Biz burada Somaliland devleti ne derse biz ona uymak zorundayız. Abdushakur Dayib Maxamed, Hon Cable TV, Hargeysa.